waad ku mahadsan tahay soo booqashada barteena. Markii uu 20 sano jirka ahaa Virgil van Dijk waxa uu ciyaarayay naadiga Groningen. Virgil van Dijk ayaana markaasi waxa haleelay xanuun ma ahayn mid xanuunkaasi loo gahay isla markaana waxa uu ku qarsanaa isaga jirkiisa. Difaacan cajiibka ah ayaa xanuunku ku soo siyaaday kadib markii uu dhameystay ciyaar ay kooxdiisu la ciyaartay naadiga Excelsior Rotterdam. inkastoo uu aad u xanuunsanayay haddana xanuunkiisa ayaa badi dadku ay u tiiriyeen waa mid ku salaysan hergab oo kaliya. macallinkii naadigii uu ka tirsanaa waxa uu yiri Virgil van Dijk waa uu xanuunsanayay laakiin ma aynan fahansanin xanuunkiisa ilaa iyo xad. Virgil van Dijk waxaa loola cararay isbitaalka laakiin nasiib darro marka isbitaalka la geeyaba wax xanuun ah lagama soo sheegin. intaa kadibna dhaqaatiirta ayaa u diray gurigiisa. xaaladda qoyska Virgil van Dijk ma aysan ahayn mid degan sababtoo ah waxay dareemayaan xanuunka wiilkooda kaasi oo aan siinaynin fursad uu saaxiibadiisa kubadda kula ciyaaro. waxay ahayd mid cabsi leh laakiin hooyadiisa ayaa isku dayday inay mar kale tijaabiso dhakhtar kale waxaana uu taasi ku micneeyay Virgil van Dijk in hooyadiisa ay badbaadiso noloshiisa. waxay wiilkeeda u qaaday isbitaal kale waxaana badi xanuunkiisa lagu sheegay igfashan dhanka keliyaha ah. Virgil van Dijk ayaa xilligaasi u baahday qalliin degdeg ah welina xaaladiisa ma aysan ahayn mid degan oo ay qoyskiisu farxad ku dareemi karaan. Virgil van Dijk oo xaaladii markaasi ka warramaya waxa uu yiri waxaan ogaa anigoo sariirta saaran kaliya waxaan arkay wixii ahaayeen tubooyinka jirkayga ka soo baxaya. jirkayga waxa uu ahaa mid jaban mana aanan awoodin inaan wax xun sameeyo. inkastoo xaaladdu ay ahayd mid xun dana waxa uu kaliya u baahday 2 bilood si uu u soo kabto. waxa uu 2 bilood oo kaliya uu ka maqnaa kooxdiisa waxa uu sii waday rumaynta riyadiisa ilaa ugu dambeyn uu soo caga dhigtay Premier League kuna biiro kooxda Southampton ka hor inta uusan noqonin difaaca ugu qaalisan ee kubadda cagta lacag lagu iibsado. kadibna uusan badbaado u noqon kooxda kubadda cagta Liverpool oo difaaceedu ahaa mid biyadaysa. Virgil van Dijk wuxuu ku guuleystay in labadii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay uu bardhamad ka gaarsiiyo kooxda Liverpool dhanka tartanka Champions League. waxa uu sidoo kale gacanta u geliyay koobab kale oo muhiim ah. shakhsiyan waxa uu ku guuleystay xiddigii ugu wanaagsanaa qaaradda Yurub kala ciyaareedkii la soo dhaafay waxaana uu abaalmarintaasi ku garaacay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo kuwaasi oo ah labada xiddig ee kubadda cagta ugu wanaagsan. si kastaba ha ahaatee Virgil van Dijk hadda waa difaaca ugu wanaagsan kubadda cagta marka loo fiiriyo tirakoobka kulamada uu haysto inta badan iyo sida uu dadaalo hanaankiisa ciyaarista kubadda ee kooxda Liverpool iyo qaranka Holland iyo xaqiiqooyinka muujinaya sida uu mar walba u yahay badbaadiyaha Liverpool ee dhanka difaaca. balse waxaasi oo dhan waxay dhaceen inuu nasiib ku lahaaday inuu ifka sii joogo maadaama uu sanado yar ka hor ahaa mid isbitaalka jiifa isla markaana xanuun dartiis aan awoodin inuu sariirta ka kaco. kuna darso Virgil van Dijk waxa uu ka soo gudbay marxalad kale oo aad u adag oo ahayd isagoo maqaayadda alaabta ka dhaqa uu ugu dambeyn noqday xiddiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub. sideed u aragtaa nolosha adkaysiga iyo dhiiranaanta ku salaysan ee Virgil van Dijk uu ku soo noolaaday mase u qalmaa inuu hadda yahay xiddiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub ee sanadkii la soo dhaafay? haddii aad warbixintan daawatay oo uu channelkeena kugu cusub yahay fadlan subscribe saar oo nagu soo biir riix gambaleelka digniinta si durbabay ku soo garaan muuqaalada xiisaha leh oo aan bartan soo gelino. like saar muuqaalkan una share garee asxaabtaada. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho. aad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteena.